Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sidaa hore isu weydiisay waxaan maanta halkan ku arkaynaa sida WhatsApp-ka loogu download gareeyo PC-ga ama laptop-bada ama kombiyuutarada caadiga ah anagoo isticmaalaya. Iminka tusaale ahaan kaygu waa Windows 10. Markaas anagoo isticmaalayna marka koowaad Google-kan soo kicinaynaa, kadib waxaan ku qoraynaa WhatsApp for PC ama WhatsApp for laptop ayaan ku qoraynaa. Kadib markaan inta aan ku qoro waxaan noo soo saarayaa page-kaas noo soo saaraya ama waxaan ku qoraa www.filehippo.com ayaan ku qoranaa. Labadaas uu soo saaray. Marka hadda kombiyuutarkaagu yahay 32 operating system-kiisu waa 32 bit ka saraad ku download garayna. Hadduu yahay 64 kan hoose ayaan ku download garaynaynaa. 64 ka hoose ayaan download tusaalekaygu waa 64 ka hoose aan ku download garayn doonaa. Si aan u ogaano inuu yahay 64 operating system-keena halkaas aan galaynaa about system-kaas aan galaynaa ama right click PC-ga dhahaynaa, kadib property-gan tegaynaa halkaas noo soo baxayso. Kadib hoos ayaan u dhaadhacaynaa operating system-kiisa halkan ayuu nagu tusaynaa. Tusaale hoos markaan u degno hoos ayaan u jeedaynaa. Iminka iyagaas waa 64 halkaas operating system 64 bit buu ahaa. Waan ku downloadaynaa. Markaan download kadib uu download-ku uu dhammaado halkaas hoosta ugu tusaya inuu download garaysmayo. Download-ka halkaas ku tusaya 132 megabyte ayaan u malaynayaa. Wuu soconayaa markaan dhammaystirmo waan soo gaabinaynaa. Waa halkaas install garoobaya. Wuu install garoobay. Markuu sidaa install garoobo waan soo kicinaynaa click markaan idhaahno calaamadaas ayuu noo soo saaray code-kaas. QR code ayaa la yiraahdaa. Kadib markaan halkaas waxaan galaynaa mobilkeena saddexda dhibcood ee dhanka midigta ku taal isku saaran ayaan galaynaa. Kadib setting-kan sii galaynaa account marka aan setting gal halka magaceena ku qoran yahay qaybta dhanka midigta kaga taalo code-kan oo kale ayaa ka muuqanaya. Kadib my code kale ayaan click dhahaynaa. Kaamirad oo wax duubayso kale noo soo baxayso. Marka kaamirada noo soo baxdo code-kan ayaan ku qabanaynaa halkan nooga muuqdo. Kadib saas ayuu noogu xidhiidhinayaa laptop-ka aan ku download garaynay iyo kii ku jiray mobilkeena ayaa qabsanay. Kadib ama mobilkaaga ku isticmaali kartaa ama kombiyuutarkaaga laptop-ka aad ku isticmaali kartaa kuwa kale application-ada kale laftooda sidoo kale ayaa loogu soo download karaa sida Telegram-ka, imo-ga, Viber-ka waxyaabahaas oo dhan sidan ayaa loogu soo download karaa. Aad baad u mahadsantihiin. Isla socod wanaagsan.